qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xukuumadda Soomaaliland oo dhawaan albaabada u laabtay TV-yada Samniis iyo SBS taasi oo ay sheegeen inay ku gafeen qaranka isla markaana baahiyeen warar kulida ammaanka Soomaaliland. Wariyaashani ayaa xukuumadda ka codsaday in dib looga qaado xayiraadda TV-ga Samniis ay sheegeen in xadhigiisa loo maray sifo khaldan taasi oo ahayd mid xaq darra waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. TV-ga Samniis waxa loo maro sharciga oo maxay sharcigu ha shaqeeyo Soomaaliland in xayiraadda si degdeg ah looga qaado telefishinka caalamiga ee Samniis iyadoo aan loo marin ama loo soo marin xadhigiisa sifo sharciya waayo waxa la isbarbar dhigay telefishin loo SBS oo sifo khaldan iyo soo shaqeynaya macal ka baxsan tahay xagga sharciga saxaafadda. annagoo ah warbaahinta madax bannaan ee ka howlgasha gobolka Togdheer waxaanu soo jeedinaynaa aanu halkan ka cadeynaynaa TV-ga madax bannaan ee Samniis in ilaahay hadda xukuumadda Soomaaliland waxay ugu joojisay dalka aanay sheegin wax cad oo Samniis maaha mid waafaqsan warbaahinta baan leenahay mana aha mid waafaqsan sharciga u degan warbaahinta iyo dawladda ka dhaxeeya telefishinka Samniis wuxuu ka mid ahaa warbaahinta rugcadaaga ee telefishinada afka Soomaaliga ku hadla waxaan halkan ka hadlaynaa dalnahay warbaahintii gobolka Togdheer oo aan isku imanay maanta sida xukuumadda Soomaaliland ay xayiraad u saartay telefishinada SBS iyo waliba telefishinka Samniis aad iyo aad baan uga xunnahay telefishinku iyo ama wasaaradda warfaafintu iyadu ma noqon karto go'aanka ku dambeysay ama go'aanka maxkamadda kale talo war saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa mid muuqda mid aan ku salaysnayn sharciga xeer kasta sharci kasta wareegto kasta iyo amar kasta oo aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu buurayaa xorriyadda saxaafaddana waxa damaanad qaaday dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane wasiir telefishinka Somali News haddii maxay talo lagu hayo wax sharci darro ah oo dhabar joob ku ah qaranka Soomaaliland oo uu sameeyay warbaahinta loo soo bardhigo hadlayno maaha TV-yada ama saxaafadda guud ahaan ma qaldanto qalad wuu dhacaa waa la qaldamaa laakiin damaanadda xukuumadda iyo dawladdu waxay tahay marka ay cid wax ku eedeynayso inay dambi qaranka ka gashay ama ay ku gabood fashay waxa weeye sifo sharciya iyo process inay qaadato legal xukuumadda Soomaaliland ka codsan lahayn in loo soo celiyo ruqsadiisii telefishinka caalamiga ee Samniis wixii dambiye uu galayna lagu qaado. Soomaaliland waxaan leeyahay haddii aad tacadiyo ka dhana saxaafadda oo aanaydu hab sharciyeysan u marin in aad kula kacdaan waxa cadaanaysa waxyaabaha leedku xaman jiray xukuumaddana waxaan u soo jeedin lahaa xariga ay saartay labada TV runtii labada TV in ay isku mar xayiraad saarto maaha sababtoo ah labada TV way kala dhow yihiin taraa waragna processki iyo habkii loo soo maray TV-ga Somali News TV-gu khalad uu kali karaa haduu baahiyay wax khaladaad ay jiraan in sifo sharciya loo soo maraa Soomaaliland ugu baaqaya in ay ku cadeyso waxay telefishinka caalamiga Somali News ay uga joojisay shaqadii uu ka hayay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in xayiraadda la saaray telefishinada Samniis iyo SBS telefishinadu walow haba kala sokeeyaan oo qaladada sameeyaan ha kala sokeeyaan laakiin waxaan aragnaa telefishinka Samniis inaanu ahayn mid qalad galay. Khadir Cabdirasaaq Salebaan Khadir Hanad Bulsha TV Burco.